What if I told you that getting richer than 99% of people is actually easier than you think, and all it takes is just 30 minutes a day? As soon as they get paid, the money just seems to disappear. And that's because they don't have a paycheck routine. But I said it like that, and suddenly everyone's eyes lit up and they went, "You play RuneScape?" And I was like, why? And they went, "Because we all do as well." sidaad hore iga barateenba waxaan idin soo gudbin jiray journalist aad maaragtay ku horumarin karto luqadaada sidoo kalena nafsadaada horumarin karo balse maanta waxaan rabaa inaan muuqaalkan idinkugu la wadaago shanta channel ee aan aadka u jeclay in aan mar walba daawado waliba channelka ugu dambeeya ee shanaad waa channel aan aad u jeclay yani muuqaalada uu soo gudbiyo inaad fahanto English ahantiisa iska daaya waxaad dhuuxi doontaa yani waxa aad ka faa'iideyso yani waxyaalo badan aad ka faa'iidi doontaa oo nolosha qoseeya kaliya inaad luqadaada horumariso channelkaas uma daawan doontid ee waxaad u daawan doontaa xitaa in aad noloshaada dhanka dhaqaalaha aad horumariso oo aad noqoto maaragtay qof aan caadi ahayn haddaba inta aynan muuqaalka bilaabin waxaan ka codsanayaa in aad channelka subscribe dhahdo haddii aadan horey u dhihin ama ugu yaraan hal qof asxaabtaada kamid ah la wadaagto si maaragtay oo channelka faa'iido ugu noqoto sidoo kale inaad muuqaalka like sartaa ka hilmaamin haddaba haddii aan u guda galno muuqaalkeena maanta channelka ugu horeeyaan rabo inaan kula wadaago wuxuu noqon doonaa Ali Abdaal muuqaaladu soo gudbiyo Ali Abdaal waa muuqaalo aad u quality sareeya sidoo kale aad ka faa'iidi doonto waxyaalo aad u far badan waxyaalo kala duwan oo soo dhiga dhanka ardayda oo kale wuxuu ka caawiyaa maaragtay time managementiga qaabkaad study plankaaga u samaysan lahayd sidoo kale dhanka maaragtay lacagaha iyo financega marka qaar ayuu ka hadlaa yani hore wuxuu ahaa nin dhakhtar ah laakiin sidoo kale hadda muuqaalada noocan ayuu soo gudbiyaa marka soo waxaan isleeyahay haddii channelka Ali Abdaal aad ku xirnaato in maaragtay luqadaada aad horumarin doonto sidoo kale dhanka kale ee noloshaada maaragtay uu ka caawin doono. To worldwide screen time statistics, the average person spends 6 hours and 40 minutes in front of screens, which is mostly their phone, every single day. That is 40% of our waking hours. And so, if you imagine yourself being alive for at least the next 50 years, of the next 50 years, you are spending 20 years looking at screens, which is probably your phone. I think it is fair to say that a lot of us are addicted to our phones, and generally, most of us probably don't want to be addicted to our phones. So if you feel like your screen time is a little bit high, then I'm hoping by watching this video, you'll understand why phone addiction happens in the first place and why it's hard to deal with. Secondly, why it's bad and why we should try to deal with it. And thirdly, I'm going to share 7 actionable tips that I've personally found really helpful for breaking my own phone addiction and reducing my screen time so that I can use my time in a way that's generally healthier and happier and more productive. And if you're new to the channel, then hello, my name is Ali. I'm a doctor turned entrepreneur, and I'm also the author of Feel Good Productivity, which is a book about how to do more of what matters to you. channelka labaad ee rabayna kula wadaago wuxuu noqon doonaa Mr Beast of course yani badankiina waa taqaanaan the next 7 days in this massive underground city. How does this place exist? Although it may look like something straight out of the future, this city is built inside of a mine dating back over 1,000 years ago. And with countless uncharted tunnels and chambers, who knows what horrors we'll run into. Mr Beast yani kuma dhahay noloshaadu waxaad kusoo kordhin doona laakiin dhanka luqadda Englishka aad ayuu kaaga caawin doona yani wuxuu sameeyaa geemam kala duwan dad fara badan oo kala duwan oo la kulmaa yani markuu waliba hadlayo kor ayuu u qeyliyaa markuu muuqaalkiisa sharaxayo soo waxaan isleeyahay Mr Beast ugu yaraan luqadaada maaragtay way ku horumari kartaa oo wax badan ayaad ka faa'iidi doontaa. These are the stairs that descend into the city. How old are these stairs? Older than us. All right, now that we're down here, look at how high up the ceiling is. Wow. We are 400 feet underground right now. And somehow this village just exists. This is nuts. During World War II, when Romania was getting bombed, thousands of people would hide here. And now, just a bunch of YouTubers live here. And soon enough, we found a great place to spend the night. I think we should camp here. channelka saddexaad ee rabo marka inaan kula wadaago ayaa wuxuu noqonayaa waa yar la yiraahdo Jolton Welch يعني muuqaaladu soo gudbiyo waa sida maaragtay Iman Gutch oo kale oo aan hore aan kugu la wadaagay. If I told you that getting richer than 99% of people is actually easier than you think, and all it takes is just 30 minutes a day. Well, if you follow the strategy I'm about to share with you in this video, I promise you will make more progress in 1 year than most people will in a lifetime. So muuqaalada yarkan asagana waxaan isleeyahay luqadaada aad ay u horumarin doonaan sidoo kale waxaad ka faa'iidi doontaa how to become a millionaire waa sida ay muuqaaladooda u sameeyaan ugu yaraan sidoo kale asagana dhanka financega wax badan ayaad ka faa'iidi doontaa so asagana channelkiisa waxaan isleeyahay luqadaada waad ku horumarin kartaa haddii maaragtay aad ku xirnaato oo aad daawato. So today I'm going to share it with you, tell you why it works so well, and show you how you can apply it to your life to get disgustingly rich. First, you need to understand how the average person operates and how to break free from this trap before it's too late.
If you look around at what the average person does, you'll realize that most people never make any progress in their life. Most people think that the only way for someone to get rich is either by getting super lucky or by winning the lottery. balse channelka afraad aan kula wadaagi doona asagana aad ayaan u jeclahay channelkan waxa la yiraahdaa Hamza ama Hamza Ahmed inuu ayaan jeclahay so Hamza English ku hadlo waa perfect muuqaaladu soo gudbiyana waa understandable waliba deep voice ay ku soo gudbiyaa sideeda oo kale intaasna kaftana iska haato laakiin Hamza muuqaaladu soo gudbiyo waxaan isleeyahay luqadaada aad ayaad ugu horumarin kartaa sidoo kale tan noloshaada dhinacyo badan ay ka taabanayaan muuqaaladu soo gudbinayo waliba dhanka wiilasha ayaan isleeyahay gabdhahana way taaban karaan but I go in and I'm being introduced to everyone and I sit down next to the boys and we end up talking about stuff and then one of the guys looks to me and he says, do you play any video games? And I shyly kind of say like, oh well, there's a game that you guys might like. I don't really play it, but it's called RuneScape. And the reason I said it like that is because where I was from, that game was seen as like kind of sad. But I said it like that and suddenly everyone's eyes lit up and they went, you play RuneScape? And I was like, why? And they went, because we all do as well. I was like, wait, what? Like I play as well. And you know, I instantly bonded with the guys. They asked me what level I am, like combat level. hadaba hadii aad jeceshahay maaragtay in aad dhageysato yani marka qofka Englishka ku hadlayo inuu deep voice ku hadlo sideedoo kale Stop it. Get some help. waad ku biiri kartaa channelka Hamza waxaan isleeyahay wax fara badan ayaad ka faa'iidi doontaa sidoo kale guys linkiyada channelska qaybta descriptionka ayaan idin soo gelin doonaayo idan ka hilmaami doona hadaba hadii aan u tagno channelka ugu dambeeyo ah midka shanaad waan aad ka u jeclahay waa nin oday ah oo lagu magacaabo Mark Tilbury channelka ninkani hadii aad tagto waxaan hubaa يعني سجاشن كعيشو أو صوصعته عاد ماركتي استعدي قرينيسي لقد هذا إنجليش كأمات فكس كساريسي هدي الجانل كان كلية دابطو لما جانلس ككلاتيس كذا بلسي هدي كلية جانل كان كوهرناتو وحن هو إن أي لقد هذا وحبة ذنس كبدل دونا صوبتو اللقد وكوهد لاي understandable سيدو كلاتو British accent سيدو كلاتو subtitle أيليهن سيدو كلاتو عدكي سوا deep voice يعني سفي عن أيد أفهم كرتا مركي وحد لاي حدبا إلى سؤال جانل كيسا transport, $2 on a sweet treat, and $1.40 on unwanted subscriptions every day, then that's the same as spending $10,000 every single year. This is the reality for most people. As soon as they get paid, the money just seems to disappear. And that's because they don't have a paycheck routine. This is so important because being careful with my money in my late teens and early 20s was the thing that enabled me to become the first millionaire in my family. waliba kaliya English kaliya ma ahan wuxuu ka caawin doonaa maaragtay dhanka nolosha financigaaga iyo waxyaalo fara badan waqtigaaga sidaad u manage karin laheeday yani waxyaalo fara badan oo aad nolosha kaaga caawin doono ayuu ku bari doonaa haddaba channelka ninkaaniti aad ayaan kugu dhiirigelinayaa in aad booqato waliba hadeertan booqo waa linkiga shanaad ee u dambeeyo qaybta descriptionka fur ama commentiga ugu horeeya fur kadibna linkiga halkaas aad ka raaci kartaa channelkan hadii aad soo booqato waxaan hubaa in maaragtay wax badan ay iska bedeli doonaan luqadaada iyo noloshaadaba. So in this video I'm going to be talking about the 5 things I did every time I got paid so you can apply them too and hopefully achieve even better results. This will not only help you save extra money but also build your wealth, and the beauty of all of this, you won't have to work any harder than you currently do. Right, let's imagine you've just been paid. The first thing you should do is separate your wants and needs. Believe it or not, this is one of the hardest things for people, even though it sounds simple. Especially nowadays, most people are used to such a high standard of living that they find it hard to cut down on their... shantaasi channel ayaan aad u jeclaystay inaan muuqaalkan idinkugu la wadaago si aad luqadiina Englishka ugu horumariso oo aad dhageysiga u badisaan sidoo kale channelkeena ha ka hilmaamina inaad subscribe dhahdaan oo asxaabtaada aad la wadaagto ama ugu yaraan hal qof oo asxaabtaada kamid ah aad la wadaagto muuqaalkana aad like saarto waxaan aad u jeclahay shakhsi kasto in uu luqadiisa Englishka horumariyo fadlan ku dadaal inaad naftaada ka guuleysato oo maaragtay 25 inta ka dhiman aad isku daydo in aad ugu yaraan luqadaada qaybta hadalka ama qaybta akhriska aad maaragtay horumariso sidoo kale qaybta pronunciation erayada inaad iska saxdo ha hilmaamin wad ku maasantahay daawashada muuqaalkan ku raaxayso noloshaada. Assalaamu calaykum.